kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan caawa barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxa kamid ah midowga murashaxiinta oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo isla markaana ku eedeeyay in uu mas'uul ka yahay daaha doorashada iyo ammaan ay u jeediyeen ra'iisul wasaare Roble. xogta kulan kale oo dhex maraya murashaxiinta iyo maamul goboleedyada ayaan idiin soo gudbin doonaa. dawladda Masar oo war adag ka soo saartay doorashooyinka Soomaaliya xilli ay ku dhawaaqday arrin si weyn uga farxisay madaxweyne Farmaajo. haddaba miyay Masar taageeraysaa dib u doorashada madaxweyne Farmaajo? Axmed Madoobe oo go'aan culus ka qaatay xiisadda gobolka Gedo iyo fariintii ugu dambeysay oo uu u diray ra'iisul wasaare Roble. maxaase ka jira inuu Axmed Madoobe tagayo gobolkaasi? wararka kale waxaa kamid ah galmudug oo gaadiid dagaal kala soo degtay dekedda Boosaaso iyo maamulka Puntland oo qaab la yaab leh u sheegay in uu gaadiid dagaal ugu deeqay maamulka galmudug iyo golaha wasiirada galmudug oo shaaciyay arrin fadeexad ku qoorqoor kadib markay ku dhawaaqeen in ay haysato mushaar la'aan bilooyin ah. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah, waana habeen axada 29 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2021. barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaadida booliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeena. midowga murashaxiinta ee Soomaaliya ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyaga oo sheegay in uu mas'uul ka yahay daaha doorashooyinka kadib shir ay maanta Muqdisho ku yeesheen iyagoo shaaciyay xogo badan. midowga murashaxiinta waxa ay war ka soo saareen xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha doorashooyinka dalka xilli ay Muqdisho maanta ku yeesheen kulan saacado badan qaatay. afayeenka golaha ee midowga murashaxiinta ahna murashax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele ayaa waxa uu shaaciyay in 4 qodob oo looga hadlay kulankaas ay ka soo baxeen in madaxweyne Farmaajo uu mas'uul ka yahay daaha doorashooyinka. waxa uu sheegay in qorshooyinka ay ka hadleen ay intooda badan ay salka ku hayeen habraaca doorashada ee ay markaasi diidmada ku sameeyeen ama ay ka hor yimaadeen. waxaa kulankii maanta ee midowga murashaxiinta lagu gorfeeyo culeysyada ka jira dalka guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. waxaa hoosta laga xariiqay 4 arrimood oo waaweyn ayuu yiri afayeenka golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele. qodobada ay soo saareen oo ay ka hadleen ayaa waxaa kamid ah daaha doorashada mugdi soo galay niyad jabka bulshada Soomaaliyeedna ku riday daaha doorashooyinka. waxayna sheegeen in arrintaasi uu mas'uul ka yahay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. arrimaha kale ee ka hadleen ayaa waxaa kamid ah in la isxasuusiyay in golaha midowga murashaxiinta uu u taagan yahay in dalkan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo la isku haleyn karo oo daah furan ay ka dhacaan guud ahaan wadanka sida ay tilmaameen. qodobka saddexaad waxay ku sheegeen inay wada hadallo la leeyihiin madaxda golaha wada tashiga ee doorashooyinka si gaar ah dowlad goboleedyada iyagoo u gudbiyay tabashada ay ka qabaan habraaca doorashada wixii ka soo baxan ay bulshada la wadaagi doonaan, iyo in xukuumadda uu horkacayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay wada hadallo la leeyihiin isla markaana ay ka arrinsanayaan sidii dalka uga dhici lahayd doorashooyin xalaal ah oo la isku raacsan yahay. waxa ay sheegeen in ay si aad ah u doonayaan in ay kaga warqabaan xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo ay shaaciyeen in uu hortaagan yahay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale kulankooda waxa ugu muhiimsanaa in ay kulan la qaadan doonaan xubnaha markaasi midowga golaha wada tashiga qaran gaar ahaan maamul goboleedyada oo ay sheegeen inay la balansan yihiin. ra'iisul wasaaraha waxay ku ammaaneen inuu isagu door fiican ka qaadanayo amaba uu ka ciyaarayo arrimaha doorashooyinka. waaga qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. dowladda Masar ayaa si toos ah waxay u sheegtay in aysan xiiseyneynin in ay saameyn toos ah ku yeelato doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya maalmo kadib markii socdaal 2 cisho qaatay uu dalkaasi kaga soo laabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Maxamed Nasri Danjiraha xukuumadda Qaahiro u fadhiya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa cadeeyay in ay quudareynayaan in ay Soomaalida ka caawiyaan sidii ay uga gudbi lahaayeen xasilooni darrada siyaasadda. waxbarashadu had iyo jeer waxa ay ka mid ahayd meelaha ugu caansan iskaashiga u dhaxeeya labadeena dal 10 sano. Masar iyada oo adeegsanaysa nidaamka waxbarashada qaranka iyo Al-Azhar waxa ay taageero waxbarasho siisay Soomaaliya ayuu Maxamed Nasri u sheegay wargeys la yiraahdo Ahram Online.
nasri ayaa intaas wax uu ku daray in taageeradani ay mar waliba aad u qadarin jireen dadka Soomaaliyeed oo aad ugu maleeyay Masar inay tahay goob waxbarasho. dhab ahaantii dad badan oo caan ah oo Soomaali ah ayaa waxbarashadooda ku qaatay dugsiyada Masar ee Soomaaliya ama macallimiin Masaari ah ama xitaa waxa ay tageen jaamacadda Masar, ayuu hadalkiisa ku sii daray Danjiraha ayaa xusay in waxa Masar ay aad u danaynayso ay tahay kor u qaadista horumarka Soomaaliya iyo ka caawinta isku duwidda dhanka arrimaha siyaasadda, balse doorashooyinka aysan wax faragelin ah ku sameyn doonin sida uu tilmaamay Danjirahaasi. xiriirka Soomaaliya iyo Masar ayaa sida dowladaha qaar hoos uga dhacay 4 sano ee lasoo dhaafay, waxaana ugu wacan baa laleeyahay maamulka madaxweyne Farmaajo lagu eedeeyay in uu gaaray siyaasad arrimo dibadeed oo lagu waramay in ay salka ku haysay u janjeeridda Qatar iyo Turkiga, isla markaana laga wareegsaday dowladihii kale ee saaxiibka la ahaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan, Warqad TV ayaad naga daawanaysaan meel kastoo joogtaan. waqti wanaagsan ayaan idin leenahay. markaana Axmed Madoobe ayaa waxaa la sheegay inuu go'aan adag ka qaatay xiisada gobolka Gado, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inuu halkaasi tagayo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxaa la xaqiijiyay in uu ku wajahan yahay gobolkaasi Gado, inkastoo aan la ogeyn arrintaasi sida ay ku suurtagali karto, balse arrintaasi waxaa mar ka dhawaajiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Gado Macalimow oo ka mid ah siyaasiyiinta taageersan Axmed Madoobe ayaa shaaciyay in safarka Axmed Madoobe uu noqon doono mid lama filaan ah, balse ma uusan shaacinin waqtiga uu tagi doono magaalada Garbaharey amaba qaybaha kale ee gobolkaasi Gado. sida laga soo xigtay Macalimow hore waxa uu uga mid ahaa garabka Filla Soomaaliya ee gobolka Gado. booqashada Axmed Madoobe waxaa ka horeyn doonta socdaallo ay halkaasi ku tagi doonaan madaxda isaga markaasi ku-xigeenkiisa u ah. arrintan ayaa waxay tahay arrin kale oo kasii daraysa xiisada gobolka Gado oo markaan soo cusboonaatay kadib markii gudoomiyaha maamulka gobolka Gado ee dowladda federaalka ay halkaas u magacaawday uu isagu shaaciyay arrin kasii dartay xiisada markii uu sheegay in maamul cusub oo ka madax bannaan Axmed Madoobe ay ku dhisi doonaan magaalada Garbaharey ee gobolkaasi Gado, arrintaasi oo xiisada cirka ku sii shareerisay. waaga qaybaha dambe ayaynu isla soo gaarnay. maamulka Galmudug waxa uu isagu sheegay in gaadiid dagaal uu kala soo wareegay amaba uu ka soo degsaday dekedda Boosaaso, balse arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in maamulka Puntland uu sheegay in gaadiid dagaal uu ugu deeqay maamulka Galmudug. wasiirka amniga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa waxa uu kala wareegay xukuumadda Puntland baa la yiri 10 gaari oo markaasi hub ay saaran yihiin, kuwaas oo loogu deeqay Galmudug sida lagu sheegay warbaahinta iyadu ka soo baxda dowlad goboleedka Puntland. wareejinta gaadiidkaas oo muddo ku xanibnaa dekedda Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Galmudug Macalin Fiqi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, balse warbaahinta Galmudug ayaa iyaduna qortay in gaadiidkaas uu ahaa gaadiid ku xanibnaa amaba ku xayirnaa dekedda magaalada Boosaaso, balse ugu dambeyntii maanta ay si toos ula soo wareegtay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. labadaasi war oo ah laba war oo si aad markaas isku khilaafaya. dhinaca kale wasiirka amniga ee maamulka Galmudug oo ay weheliyaan taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Banaadir Saadiq John iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay magaalada Gaalkacyo kulan kula yeesheen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland. kulanka ayaa waxaa dhankooda Puntland uga qayb galay taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shire, gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland iyo xubno kale. kulanka ayaa waxa ay markaasi uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dhinac ee la xiriira arrimaha amniga iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa guud ahaan gobolkaasi Mudug. mas'uuliyiinta ka kala socda Galmudug iyo Puntland ayaa isku raacay in si wada jir ah ay labada dhinac u wada fuliyaan howlgallada al-shabaab looga saarayo deegaanada gobolka Mudug iyo sidii loo sii laba jibaari lahaa. kulankan dhex maray mas'uuliyiinta ka kala socda Puntland iyo Galmudug ayaa wuxuu ku soo aadaya xilli saacadihii la soo dhaafay warar soo baxay ay sheegayeen in ciidamada difaaca Puntland ay qayb ka noqonayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda koonfurta gobolkaasi Mudug. ugu dambeyntiina golaha wasiirada ee maamulka Galmudug ayaa waxa ay ka cabanayaan mushaar la'aan bilooyin haysata. golaha wasiirada ee Galmudug waxa ay sheegeen
in aysan mushaar qaadanin ilaa iyo 7 bilood, isla markaana waxay qeyladhaan u direen madaxweynaha maamulkaas Qoorqoor. madaxweyne Qoorqoor ayaa sida xogaa lagu helay waxaa la sheegay in lacago malaayiin dollar ah uu ka heli lahaa filla Soomaaliya aysan weli soo gaareen, isla markaana aan weli loo soo fasaxin lacagahaas oo uu ku dabari lahaa maamulkiisa. wasiirada Galmudug ayaa waxa ay ku lug leeyihiin lacag badan oo deyn ah sida aan xogaa ku helnay, taasi oo ay ku deganayeen hoteelo halka qaarkood ay cuntooyin ku isticmaaleen. Galmudug ayaa kusoo biirtay maamulada maareen la mushaaraadka shaqaalahooda, gaar ahaan xubnaha ugu sarreeya ee maamulka sida wasiirada iyo baarlamaanka. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena. tan iyo warkaan war lamid ah intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.